xeerka furista ururada Somaliland oo maalinnimadii shalayto wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koora ku dhawaaqay inay si rasmi ah u furan yihiin diiwaangelinta xisbiyada Somaliland dhinaca kalena xisbiyada mucaaradka Somaliland ay arrinkaasi qaadiceen maantana ismaandhaaf adag ay ka yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayay qaar ka mid ah shacabka magaalada Burco oo la hadlay maqalmuuqa caalamiga ah ee Home Cable TV siyaabo kala duwan uga hadleen xeerkaasi waxaan u arkaa xeerku waqti iyo muddo lahaa dastuurka sheegay waa cayiman yahay waxay ahayd maalinteeda in lala sugo xusbiyada in maanta la yiraahdo xisbi qaran oo intaasoo sanadood lagu soo tabcaayay oo rag ku soo tabcaayay in la yiraahdo ma jiraan wallahi waxay tahay arrin Somaliland khalkhal gelinaya arrin Somaliland dib u dhac ku keenaya waxa wacan in la isla jaan qaado ilaahay baa uga cid oo xili doonta xaasidnimaduna ma wanaagsana marka waxaan oran lahaa baarlamaanka maanta idinka midida daabkeeda haya oo aragtaan halka hawli marayso sida sharcigu yahay waa ina ka martaan madaxweynahana ayaan raacin xusbiyadana ayaan raacin shacabka laakiin muwaadiniintii waxa ay doonayaan nabadgelyada ilaan khalkhal la gelin dal degan baynu nahay waxaynu iibinaynaa waa dimuqraadiyad haddii maanta ninku isiraado halkan dani kuguma jirto xaggana ku wanaagsan dalkana eegi waayo shacabkana eegi waayo dantana eegi waayo shacabku baa la kicinayaa kacaya fartaya mustaqbalkana iyaga leh xeerka furista ururada aad baan u soo dhaweynayaa waliba waxaan rajaynayaa in isbedel weyn yimaado dhanka marka ururada la furo ay soo baxaan ururo ka saameyn badan xisaabtan imika joogtay ee mucaaradka oo tayadooda aad u liidato marka waxaan rajaynayaa in mucaaradka dalka u soo baxo hadii Ilaahay ka dhigo sababaha aan ku ogolahay ururada in la furo waxa weeyaan neew mucaaradkii baa dalka aad uga jilicsanaaday marka waxa loo baahan yahay inay soo baxaan hadii xisbiga kulmiye uu soo noqdo iyo hadii wadani soo noqdoba anagu waanu taageeranaa mar walba xisaabta qaranka waanu la shaqeynaa laakiin waxaan rajaynayaa isbedel baan sugaynaa isbedel ayuu dalku u baahan yahay Faysal Cali Waraabe يا عبد الرحمن عرو يا مصبح صدق هذا بين اللي بدله بابن رجلنا إن شاء الله أو أي صباحان تدخلوا عصب حركة حرف فريق طبعا نظامك يفرش هذا أصحاب تورط سياسة Somaliland هرتمر كورنتين نسويدين حركم ما أنصحبها مشرعي درع مسوا شرعي وحين نسويدين حركوا شدوا وياي مركور حركوا وحير قولها شرعي دكتور أي تاينو صدر عند الريو ما هو كشقيو xeer kan maanta ay dawladdu soo dhigtayna wuxuu u muuqdaa ama ay wasiirka warfaafintu sheegay inuu yahay xeer sharciga baalmarsan qodobadan soo socda awgood xeerka markii ugu horeysay xukuumadii kulmiye ayaa wax ka bedeshay bishii 12 13keedii 2011kii marka ay wax ka bedelka ku sameysay 2011 xeerka wax badan buu kala kiciyay oo ay kamid ahayd shahaadada xisbiyada la siinayo oo markaasi xeerka intaan kaabishii wax ka bedel xukuumadda Axmed Silaan ku sameyn ahaa in shahaadada xisbiyadu ay tahay 5 sano muddada kadib kulmiye waxa uu ka dhigay shahaadada xisbiyada la siinayay 10 sano taa marka aynu barbar dhigno waxay cadeynaysaa in 2022 bisha 12aad ay xisbiyada Somaliland maanta ka jiray shahaadadoodii sidaasi sharcigi uu dhaqangal ku yahay oo shahaadadii markaa ka dhamaatay markaana loo baahan yahay la furo marka laba mid weeye in dawladdu ay muxuu ahaayay ka noqoto sharcigaasi oo golaha wakiiladuna maanta ay iyaguna sameeyaan isbedel wanaagsan dawladana waxaan leeyahay xeerka waad ku fashilanteen inaad wax ka bedeshaan ee raali noqda doorashada u diyaar garoow 2022 xeerka ururada ee la furayay madaxweynuhu ku dhawaaqay waan soo dhaweynayaa saddex xusbi baa imika in badan in hortaagnaa haddaynu nahay shacabka reer Somaliland marka chance in la siiyo xusbiya kale oo cusub oo dhiig cusub ku soo kordhiya shacabka runtii waxaan u arkaa inay tahay arintaas ay tahay xumayn lagu xumaynayo xisbiyada iyo waxa weeye ficiltan aan loo baahnayn maanta taagan baan anigu arkaa sababtoo ah waxa weeyaan waxaan u arkaa in maanta dawladda Somaliland waxa weeyaan xisbiga kulmiye inay maxay ahayto ay yihiin xaydha jecel beerka jecel oo maalin walba waxa weeyaan raaf iyo halka isleeyin maanta waxba ka qodi karaysaan ay ku wadaan halkii xisbiyadii waxyaabo badan xisbiyadu ka xishoodeen iyo mucaarad ba sometime markaad isaa xisbiga kulmiye aad u eegtaad moodaysaa marka waxaan leeyahay anu khalad baan u arkaa furista waxa weeye doorashadii madaxweynaha ayaa taagan waxay raadiyay xisbiyo 10 sano waxaan fadhiyay raadiyay oo waqti badan oo nin walba meherada uu leeyahay uu ka dhigtay marka anu waxaan leeyahay in dhig cusub lagu shubo oo siyaasad cusub aynu la jaan qaadno oo xusbiyo cusub la furo ay taasaan soo dhaweynayaan anigu marka waxa jira siyaasiyiin fara badan ama dad mutacallimiin ama dad la yara aqoon leh
oo ka faa'iideysan kara siyaasadda iyo la jaan qaadi kara baa loo baahan yahay marka anigu waan soo dhaweynayaa in la furo xisbiyada anigu waan soo dhaweynayaa sababahan u soo dhaweynaya waxaa ka mid ah saddexda xisbi qaran ee muddada joogay wax laalay xurumaro ay soo kordhiyeen ma jirto xagga ra'yigayga kolley waa soo dhaweynayaa waana arrin loo baahan yahay waxaa la doonayaa maskax cusub dhiig cusub siyaasad cusub wajiyo cusub kolley in badan bay dee nimankan aynu saarkaynay markaa wax isbeddel baynu u baahannahay haddii la nafta daayo xagna marka laga eego kolley wakhtigan iminka la magacaabay kolley ku munaasab ma aha oo dee doorashadii madaxtooyada soo dhow wakhtiga ururada la furayo haddana iyagu tartanka sii gelayaan kolley waa hawl baa imanaysaa waddankuna abaaru ku jiraa markaa bal xaggana ha la eegan leh cabdirashiid timir maqal muuqa caalamiga Hon Cable TV burco